ninka xabadda irida waxaan arkaya geel loo idiin guda keenayo war maxay geelaha awal idiin siin wadan baa difaacayseen geela maxaan awal idiin siin maxaan hilibka idinku qalin awal wadan baa difaacayseen shabaab baad ka difaacayseen laakiin markii dhiigga Soomaalida uu noqday baa geel idiin keenay dhiigaaga ma waxaad ku doorsanaysaa neef geel ah dhiigaaga ilaa xabaddu markay bilaabato qof ku dhiman doono ma ogid waad dhiman doontaa markaa dhimatidna ilaahay baad la hortagaysaa adigoo dhiig islaameed qaba dhiigaagii marka qiimahaagii dhamay naftaadii qiimihiisa ma waxaa lagu maslaxay odayada gararka waaweyn ee beenta ah waxay kugu maslaxayaan inaad cimri inuu yahayba noloshaada dhanba inay geelaas tahay oo geel baa naloo keenay hilib baa naloo qalay waa maxay war adigu ma hilib baad joogtaa adigu ma waxaad ku qiimaysan tahay hilib lagu keeno markaad qadiyadda saxda ah ee waddankana difaacaysa maxayna isoo aruurin hilib maanta isoo aruurinayaan hilib qiimahaagu hilib maaha ku noqo xeryahaagii ku noqo qaran baa ku qaxiyey qaran baa aad ka tirsan tahay qaran baad leedahay ku noqo kaas ayaa ku qurxin kara ee qabiilkuma qurxin karo ku noqda meelihiinni waa haddaad dhab ay kaa taho ciidan dhab aad tahay kuwii ayaa mooryaan baa hadda annaka isaga keen dhigayna ciidan qaarkood oo naqaanaba meeshay ka yimid waxay yihiin aan ogna garaado beenahoo gidgidgudan baa lagu wataa markaasaa lagu hadlayaa ka fiirsada ku noqda xeryihiinni dan halkaas idinku jirta dan idinkuma jirto in inta xamar soo gashiin raggan siyaasadda danta kale iyo maaragtay ay xoolo idin qeeraan ayaa laydinku laayo meesha aad ku dhimatiin ama aad wax ku dishiin dan idin ma aha ku noqda xeryihiinni ayaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu